booqanay xafiiska ugu sareeya wadankan Koonfur Afrika Islaamka markaysa oo la yiraahdo MGC Masjidul Qada lil Islam oo hadda markay South Africa la yiraahdo boqolkiiba 2 islaamka ah laakiin waa dad isku xiran oo hal community ah oo bisha Ramadaan markay soomayaan waa meesha laga iftoodo maalinta la ciidayo markii la ciidayo waa meesha laga iftoodo waa meesha xukunka islaamka ay ku kala baxaan ma arkaysa dadka islaamka ah hatta dadka aan islaamka ahayn ama dawladda South Africa xilli walba doorasho dhaco waa meesha ay yimaadaan oo ma arkaysa ay ku xiran yihiin nooc walba ha aad madaxweyne walba Soomaaliya wadankan maanta safiirka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya ee Koonfur Afrika excellent mudana Sheikh Mohammed Ishaq maxaa yeelay waxaan leenahay safiirkeena waa xaafidul Qur'aan oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ahlu diin ah asagoo maanta go'aan ku gaaray Cape Town markaan imaanay inuu dadka muslimiinta Cape Town degan oo wadankan fac degan inuu soo booqdo xafiisyadooda iyo madaaristooda iyo macahadooda aan maantana ka soo bilawnay insha Allah ta'ala halkan waxaan aad noogu soo dhaweeyay madaxweynaha Muslim Judicial Council oo markaysa xafiiskooda Cape Town iyo teamkiisi aad baan kaga mahadin celinayna insha Allah ta'ala soo dhaweynta in soo dhaweeyeen insha Allah ta'ala aan ku hadlay xafiiska arrimaha diinta iyo waqaftana waxaan mar walba aan la shaqeyn doonaa wadankan intaan joogno ka Soomaali ahaan ka jaaliyad ahaan muslimiinta wadankan degan